السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن إذا هانتين بضاع وضيال إسسان نقد ونكسن مركلة وحنا هاي جولة دلفلة وحنا هاتنا أي إيجدنا كدب مركي حالي دولة فدرال كدلك إثيوبيا شاعسي إن جعان تقول دكتي مقالة مقالة عاصمة قبل كتكريج إسلام مركزنا كجت خلوسان كوهدي تكريج تي بي لفتا أي واحد تن إيه حالي بكسعودي مقالوين كواوين dalka Itoobiya dibadbaxyo lagu taageerayo arintaasi ama guushaasi ay dawladda federaalku sheegtay inay gaadhay meelaha ugu badan ee dibadbaxyadaasi ay ka dhaceen waxa ugu badan magaalooyinka gobolka Amxaarada waxa la sheegay in wadooyinka ay isugu soo baxeen kumanaan aad ugu faraxsan guusha uu gaadhay Abiy Ahmed iyo dawladda dhexe ee dalka Itoobiya haddaba maxay tahay sababta ay Amxaaradu sidan oo dhan ay ugu faraxsan tahay guushani Tigreega laga gaaray marka laga yimaado xurgufta labada qowmiyadood ee Tigreega iyo Amxaarada ka dhaxaysa waxa la leeyahay labada siyaasadood ama labada group ee isku hayay siyaasadda dalka Itoobiya Amxaarada iyo Tigreega si kala hadii aan u dhigana dhergigii hore iyo Amxaarada xaq jirka ah oo garbaha haysa ama maxaan ku yiraahdaa daba taagan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kale kooxda TPLF guud ahaan dibadbaxyadaasi iyo damashaadkaasi ayaa ka socda deegaanada kala duwan ee dalka Itoobiya khaas ahaan ugu badnaata gobolka Amxaarada waxaan idinku duwi doonaa Jamac Galad iyo Nuur Maxamed oo inoo sii falanqeeya bal sababaha Amxaaradu ay sidan oo dhan ugu faraxsan tahay guusha dawladda dhexe iyo sidoo kale meelaha ay dibadbaxyadu ka dhaceen kaalinta Soomaalidu ay ku leedahay iyo guud ahaanba dabaaldegyada ka socda Itoobiya oo ay inoo falanqeeyaan markii lagu dhawaaqay in la qabsaday magaalada Makale ee xarunta gobolka Tigreega isla markaasina ay galeen ciidamada militariga wadanka Ethiopia waxay banaanbaxyo iyo dabaaldegyo xooggan ka bilowdeen magaalooyinka kala duwan ee Axmaarada halkaasi oo dabcan ay ka dhaceen banaanbaxyo aad u ballaaran oo qaarkood khasaare keensaday sidoo kale magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ayaa iyadana maanta la isugu soo baxay waxaana la arkayay iyada oo dadku ay wadooyinka lugeynayaan isla markaasina calaamada dawladda Ethiopia ay lulayaan sidoo kale waxa la arkayay ciidamada Bambeyda oo iyaduna ka qayb qaadanaya isu soo baxaasi isla markaasina la sheegay in loogu dabaaldegayo guusha ay ciidamada Ethiopia ka gaadheen qabsashada magaalada Makale ee xarunta gobolka Tigreega dadkaasi banaanbaxayay ee magaalada Addis Ababa gaaf wareegayay waxa kamid ahaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar arintaasi ayaynu eegi doonaa Jamacu Addis Ababa maanta dabcan wala isu soo baxay bal hadda ka waran dabaaldegan waxay u ekeyd dal kala qabsaday bal hadda sawir guud ka bixi banaanbaxan iyo qaabka qabsashadii Makale dadku ay u soo dhaweeyeen reer Ethiopia بسم الله الرحمن الرحيم أرتا وان سلام يا جودهان بأمد الصوماليات ميل كستي وجوجان إن نورو مركل الله فيريو حقيقة أي واقع نبتة أي سيد هذا حالك يا مركل الله فيريو أرنتن ويكون تحت دل قبصة وحال باب فكر يا أركتي سياسات أو محن كل هذا ضد بدن وضد كان إثيوبيا اللي يجاهدوا أما إثيوبيان كان لو شيء أي قبين يا ماشى يا لباب waxaa maartay soo baxay oo hadda maartay to soo kormaray fikri in muddo ah maartay laga itaal roonaa ama bal la cadaadinayay ama maxaan ku yiraahdaa to ahaa mid gabaabsiya marka arintu dal qabsaday oo ku duulay hadii ay ahaan lahayd xitaa sidan looma dabaaldegay laakiin waxa hadda maartay socda waa laba fikri ama labadii aragti ee Ethiopia maartay uu challenge uu kaga dhaxeeyay ee isku eriyanayay ee ku dagaalamayay ku hardamayay yaa kii xooga badnaa ee taageerada badnaa yaa xalay ama shalay god lagu riday marka mudaharaadkan iyo taageeradan dad baa ku dhintay xagga iyo deegaanka Axmaarada maxaan ku yiraahdaa tan Addis Ababa iyada naftarkeeda wali khasaaraheeda lama hubo laakiin waa suuragal in ay dad badani ay ku waxyeeloobeen marka dabaaldegani waa dabaaldeg maxaan ku yiraahdaa si niyad ah ay dadka qaar ugu dabaaldegayaan oo kal iyo laab ah oo dareenkoodu uusan maxaan ku yiraahdaa xitaa ahayn maartay mid xakamaysmaya dadka qaarna waa haheeya raac oo maartay way iska dhex ordayaan sidaa daraadeed dabaaldegan aad arkayso ciidankii Bambeyda iyo qaybihii kala duwanaa ee ciidamada wixii ka joogay ay Bambeyda soo qaateen dumarkii iyo caruurtii ay maxaan ku yiraahdaa mid waliba ilmaheedii ay dhabarka soo saaratay waxa weeyaan waa fikir
iyo aragti siyaasi ah ama mabaadi maxaan ku idhahdaa to muddo aasnayd oo mar kale soo noolaatay weeyaan ee ma aha wax yar oo maaragtay qabsashadii maqale ku maaragtay yacni ku eg ama ku bilowday ama ku dhammaanaya ma aha waxaan waa mabaadi weeyaan mudaharaadkan iyo waaxan iyo dadkan isla kacahay mudaharaadku meel walba ka socdaa xataa maqala wuu ka socdaa oo maxaan ku idhahdaa maqala naftirkeedu ka socdaa yaa mudaharada derbiyadeedii yaa mudaharada marka ya ciidankii baa ku dhex mudaharaada haysana gidaaradii soo calankii kuma buufsanayn Tigreega iyo calanka Ethiopia ee xidigta lahaa dhammaan askari walba wuxuu qaatay baaldi rinji ah meel ka keenaado kala sheeg marka maxaa lagu buufina waxaa la tirtirayaa calankii Ethiopia ee caadiga ahaa iyo calankii Tigreega yaa la israacinayaa calankii saddexda mardimood lahaa unba ay lagu jiidayaa kii axmarada ha marka waxa weeyaan waxani waa ideolojiyad weeyaan iyo fikir midna meesha uu kaga baxay mid kalena meesha uu ku soo galay axmaaradu afkaarteedii iyo fikirkeedii mabaadi'da ku salaysnaa ee mabda'iyan ay u aaminsanay dadkan iyo dalkanba inay iyadu leedahay tallaabadii koowaad ayay hore u qaadeen tallaabadii koowaad ee guushooda ayaa maaragtay iyo xalay hirgashay ama intii sii socon kama warqabo waxaa la arkayay dad caan ahoo Mustafa ka mid yahay oo Addis Ababa calan yar dhex wato oo dhex wareegaya iyaguna dabaaldega qayb ka ahay ha ho hadii waxa weeye Mustafa waa madaxweynihii deegaanka Soomaalida Soomaa de waa marka saaxiibadii iyo dadkii ay wax isla ahaayeen ee xisbiga ay ka wada tirsanaayeen axsaabtooda لا مصطفى موقتها مدحوينها ديانك سوماليدا وuu yahay laakiin xisbiyadan deegaanka Soomaalida kamid ma aha xisbiyada kale ku jira xisbiga ma aha naamam yaa leeyahay walaas isku fikri iyo aragti yihiin marka dadka saaxiibadiisii ay aragti wadaaga ahaayeen yaa guuleystay marka uu ku khasban yahay inuu dhex ordo waliba khudbadana uu jeedin doona kulli waxyaalaha hore uu ugu dhiiran jirinna hadda uu ku dhiiran doona awal hore federalismka wuxuu aaminsanaa in laga dhigo maxaan ku idhahdaa to mid ku salaysan jiho oo la yiraahdo intii isku aagaba waqooyiga Ethiopia iyo koonfurta maxaan ku idhahdaa Ethiopia iyo galbeedka Ethiopia iyo bariga Ethiopia in la yiraahdo inaan inagu noqono bariga Ethiopia inaga iyo canfarta iyo qayb kamid ah oromada in la isku ka yiraahdo Ethiopia waxaas in la isku ka yiraahdo iyaro baartay central ana la soo reebo Oromo iyo Axmaara isugu jir ah marka taasu awal hadda wuxuu dhihi waa sida maalmaha inagu soo socdo wareysiga ugu horeeyay ay la yeelan doonaan maxaan ku idhahdaa to isaad la yeelan doono inuu ku ogaanayna aanu imaana Bahadaar iyo Gondar xalay dabaaldegyadii ugu waaweynaa baa ka dhacay axmaaradii boodboodkii baa ka dhamaaday waxaa la leeyahay rasaas baa la furay khasaara ka soo gaadhay bal ka waran hadda arrintan niyo waa run horta dabaaldegu kuma ekayn oo kali meel walba laga dabaaldegay meel kaste oo maalaha maxaan ku idhahdaa wardheer baa laga dabaaldegay wardheer kaliya ma aha jigjiga laga dabaaldegay iyo meel walba qabri daahir baa cadhaysan qabri daahir taasi baa xalay u taallay wardheerna way dabaaldegaysa qabri daahirna way murugaysnayd bilaahi iraadiniyo maxaan ku idhahdaa jigjiga iyadu way maanta xoogaa yar maaragtay iyo ku lug dartay sida la sheegay xoogaa waan sii buurayn marka waa la iska dabaaldegay dadka waxa weeye horta dadkeenu xaqiiqada laga hadlaa moogtahay inaga dadka Soomaalida ah sideedaba aragti ma lahanba Soomaalidu waxa weeye mid walba wuxuu fiirinayaa wax yar oo aan macna lahayn meesha haduu qof saaxiiba uu ku lahaa tusaale ahaan nin saaxiiba haduu ku lahaa hadda Tigreega oo kale wiil murugoon Soomaalidu kuwa farxa hayo oo kale maxaan ku idhahdaa axmaarada saaxiib ku leeyahay nin axmaar saaxiib ku leeyahay hadda dhagax buuriyadana waa laga dabaaldegaya waxa looga dabaaldegaya Mustafa aaday meesha dabaaldegaya aragtida dadkeenaba noocaasaba kuma salaysna mabaadi iyo fikir iyo hadaf ay aaminsan yihiin wardheer xalay way dabaaldegaysaa hadii hadda maxay u dabaaldegaysaan ma garanayaan marka dadkeena dhan waxa iska yihiin wax iska maaragtay iska yar maaragtay arrimahoodu oo dhan ba iska yihiin yaani hogaaminta dadkeena waa fahmay dadkeena walaalkeeda halkooda ku kala 10 qof oo midba fikir aaminsan mid murugaysan iyo mid xalay qabidaar waa murugaysan wardheer waa farxaysay maanta dhagax buur waa farxaysaa jigjiga qayb dhan baa murugaysan qaybtii axmaarada cidii ka ag dhaweyd
xaafadaha shanaad iyo maxaa la lahaa lixaad miyaa la lahaa iyaguna way dabaaldegayaan ha tobnaad iyo sagaalaad iyana waa murugaysan yihiin waxoo dhan marka dadkeenna afkaarta dadkeenna waxayna lahayn aragti ay ku cabirayaan barilaha iraadadii cadowgooda iyo saaxiibkooda iyo mustaqbalkooda iyo mabaadii rasmiyaho iyagu ay aaminsan yihiin oo wax kasta oo yimaada haddii yacni 20 walaalo ah laga dhigo meesha loo dhiibo iyo haddii ummadda dhan qof uusan ka imaanin mabaadii aan dhaqaaqaynin inay dadku leeyihiin baa fiican innaga mabaadi'deennu yaa meesha jooga wa kolba kii jooga meesha yaa reerkooda wuxuu noqonayaa wada madax wada saldanad xukunka iyaga ilaalinaya dowladnimada iyaga yeelanaya qof kaste oo maxaan ku idhahdaa to ay u arkaan inuusan maaragtay ku faraxsanayn iyagu sida ay rabaan waxaa weeye cadow buu u noqonayaa daqiiqad gudaheed baa laga yaabaa in 10 meelood lagaaga dhigo inaad cadow u tahay marka dadkaa kale Ethiopia ee mabaadi'da iyo iyagu aragtida leh kuwii farxana qayb baa la farxi kuwii farxan murugoodana qayb baa la murugoon marka qaybo badan baa xalay murugeysnaa qaybo badanna way faraxsanaayeen qaarba waa si marka dadkeena un baan inaguna ma aragtay aan qayb kana ay u soo noqo marka xamaara iyo wixii xamaaradu de waxa weeye adduun waxay ku noqotay wax lama filaan maqala ciidanka inta dareereen bay iska galeen iyadoon xabado ka dhex dhicin way qaadan waayeen qof walba soo rag iyo dumar ba xabado un baa la sayay bog dad badan baa ku dhintay qaar badan baa ku dhaawacmay ilaa dhimashada inta la hubo waa ilaa 5 iyo 6 wax noocaas yaa dhimatay yacni farxad daraadeed intaasna way dhaawacantay marka aragtida meesha taala waxay tahay in guushan hadda soo hoyatay ayna si dhayal ah ku filaynin qoomiyadda axmaaradu marka guushan yaala marka guushan axmaarada iskale wasiir la taliyihii ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee dalka Ethiopia ee dhinaca amniga wasiirkii hore arrimaha dibadda maxaa ahaana madaxweynihii deegaanka axmaarada xalayto fidinfidka u qaaday oramada sidee xalayto boggiisa Twitterka iyo soo dhigay moogta oramadii xalay waxa weeye yaab baa la u keenay wuxuu yiri guusha aan gaadhnay wiilay ee qabashada maxaan ku idhaahdaa to deegaanka Tigray waa mid aysan qoomiyadda axmaarada qoomiyadda oramadu ayna ku gacan siinin ee ay xaasidnimo indhaha uga dhowrayeen sidaas daraadeed ma ahaan leenahay wiil markii koowaad ee ay cadowganaga noo soo raacaan yacni dawlad Ethiopia la yiraahdaa December waa la taliyihii ra'iisul wasaaraha Ethiopia dhinaca amniga Giddu Andagacho waxa uu ka dhigay deegaanka Tigreega inay axmaara qabsatay wasiirkii hore arrimaha dibadda in deegaanka Tigreega ay axmaara qabsatay wax Ethiopia la yiraahdana ayna qabsanin dadkii ay filayeen in ay ku caawin doonaanna ay maaragtay ay sidii Talyaaniga ay ugu soo raaceen 1900 waagii ay ahayd maxay ahayd xilliga Talyaaniga iyo ay dirirayeen Ethiopia wuxuu yiri hadda iyo waxay noo soo raaceen buu yiri meeshan hiil ka filaynay iyo Talyaaniga noo soo raaceen buu yiri moogta haddana sidoo kale Tigreegi bay haddana maxaan ku idhahdaa to ama nagamaysa caawininba waxaan u mahad celinaynaa buu in yar oo aan sii buurayn canfarta oo muujisay buu xoogaa qayb ahaan inay maaragtay nala jiraan muujisay buu wax Ethiopia aan holaan abaar uga hayn ama asxaan aan uga hayn ma jirto buu markaan soo jeesanana waan xisaabtami doonaa waa madaxweynihii deegaanka axmaarada ee hore haddana ra'iisul wasaar la taliyaha ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ee dhinaca amniga maalin dhoweedna farmaajo kula shirayay maxaan ku idhahdaa bila Soomaaliya kula shirayay soo garan afkaarta iyo aragtida axmaara ay aaminsantahay waa mid daaweeyaan midda Soomaalidu ay u dabaaldegaysaa xalay war dheer looga dabaaldegayay ee war dheer looga niikinayay oo marka soo noqdo marka maxaa yacni meesha dadka xisaabtamayaan iyo meesha inaga dadkeenu uu joogo iyo aragtida qofka ku salaysan maanta hebel baa madax ah hebel baa wasiir ah hebel baa xildhibaana yacni mabaadi'dii Soomaalida oo dhan waxay ku soo ururtay meesha uu dawladdii Ethiopia guushii ay gaadhay ee ciidanka militariga Ethiopia ee qoomiyad walba ka kooban ay 24 casho dagaalka aan dhamaad ka lahayn ay ugu jireen sidii loo qaban lahaa maqala gacanta markay gashay buu yiri wax cid ah oo aan abaal uga hayno haba yaraatee qabashadeeda ma jirto oramana waan maaragtay waan kula xisaabtami doonaa taageerada sidii Talyaanigii oo kale maxaa keenay Talyaani marka meesha waxa yaala iyo waxa dadku ay maaragtay la meeraysanayaan dadkeenu ay xambaarsan yihiin ya aad u kala fog marka axmaaro inay dabaaldegto inay baashaasho inay isdhamayso inay cir iyo dhulba xabada ka dhigto xaq bay u leedahay sababtoo ah waxa ka dhaqaaqay ama ay iska horleexiyeen derbi aad u adkaa
meesha marka waxaa dumay fikir iyo mabaadi'dii dadkan Etoobiyaanka la yiraahdo boqolkiiba 80 ay aaminsanaayeen wax ka badan yaa dumay xalayto oo ahaa federalismkii ahaa hanaankii federalismka ahaa ee qowmiga ku salaysnaa oo ahaa ideolojiyad ama aragti aad u qoto dheer oo dadkan taasi marka ma TPLF ku xidhnay cid kale difaacaysa ma jiro cid kale oo ilaahay abuurtay oo Oromana ma difaaci karto Soomaalina ma difaaci karto saddexda qowmiyadood ee ay danta u ahaydna waa saddexda qowmiyadood waa Tigray iyo Soomaali iyo maxaan ku yiraahdaa iyo Oromo Canfariyadu waa in yaro sacad mugi weeyaan oo maxaa kama wax lagu taliyay geel magaalooyinba ma leeyahay Soomaalida Canfarta lagu sheegay geelada dhaqanaya Canfarta madaxweynuhu geel buu la joogaa qori Kuuriyana wuu wataa nimankan duulahaya sanad maalin walba oo cadeyti iyo cunduf uu ku soo yaacahaya magaalo ay ku hakadaan male tuulooyinka dadka barakacayaashu ay degan yihiin yaa magaalo ahaan u soo aadayaan oo rabaan in magaalada sideedii looga guuro magaalooyinka magaalada ay ciidanka militariga ka barakaysay Soomaaliya magaalooyinka Soomaalida ay ku habsadeen niyo afar wuxuu rabaa guri iyo dukaan isku yaala xaadir madaxweynuhu waxa tagay la jeedo dambaata waa dhaqankooda dee ma aha wax ceeb ma aha waa dhaqankooda weeyaan magaaladoodu waa Samaara waa afar buul weeyaan yaro wado horonaboodo ya Allah dadka canfarta ah wasaaradda waxbarashada ee deegaanka canfartu hal arday oo dhigtay markii la waayo dadka duurka loogu soo dhigaa wax loogu soo dhigaa waa la soo afduubaa ilmaha si waxbarasho loo geliyo ilmaha canfarta caadi baa loo soo afduubaa booliska inta loo diray ciidamada militariga ya iskuulaadka la keenaa markay guuraan wasaaradda waxbarashada ee deegaanka canfartu federalism waxana kaga dhiman waxana kaga ma dhimanaya waxa kaga ma noolaa بدنبك دولة نمدن iyo waxan ka jira fiiri Sultan Ali Madax miyaa la dhihi jiray nin ahay lahaa leeyahay kaas inuu muuna ahayn ku kale inuu haabaan jeclahay isaga suldaanka guud ee beesha Canfarey horta waa beel Soomaali kamid ah wax sii fog ma aha beela waa beel beelaha Soomaalida kamid ah yar xoogaa dhaqankii iyo afkii baa yar fogaaday beel kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo kalena way islaayaan oo xoogaa marka Soomaalidii kale maadaama ay ka yar baxeen iyagii oo ay meelo badan dabada ay la galeen Eritrea iyo ay maartay qayb ka noqdeen waa la fongoray waa yar la fogeeyay mooyaane nimanka horta waa Soomaali ambiye ismarinin Soomaali garan Sultan Ali Madax marka wuxuu ahaa sultan iyo madaxweyne iyo wasiir 98 wax walba isaga aha ma rabaan badii waba kula yaab ninka Canfarku markii la yiraahdo kale wasiir noqo marka that's why federalismkan saddexda qowmiyadood buu muhiim ah marka Canfarka meel geeyo ku raacdaan ma difaaci kartaa ma difaaci karaan Soomaalidu ma rabtaba hadda bahalkan federalismkan waba dhibayba Soomaalida dii madaxa ka hadlaysa ama shacabka ka hadlaysa inagu ma waxbaan rabi karnaa wixii kolba madaxweynaha la inoo keeno oo inoo rabo unba wax inoo ah hadda wuxuu Mustafa rabo yaa wax inoo ah inaga madaxweynaha aan ka fikirnay iyo aan ka fiirsan xitaa lama dhihi karo qof Soomaaliya intuu soo istaago maanta hal su'aal ka weydiin kara madaxweyne Mustafa afkaarta aad aaminsan tahay ee aad ka aaminsan tahay federalismka maxay tahay hadii la yiraahdo inoo sheeg dhahayo ma jiro oo ana laf kuwa soo lama dhihi jirin meesha soo ma joogaan kama hadli karaan maanta hanaan federalism la yiraahdo waxa laga bedelo iyo waxa lagu daro sidii wax la yeelo un baa la wada sugayaa marka Mustafana aragtida wuu soo dhagay wixii maxaan dhankii yar maartay axmaarada ay u badan tahay un buu raacay Soomaaliya markuu waraysi bixinayo labada waraysi isku xidhmid walba waxbu kaga hadlaa marka ma aha yaani Soomaalidu dad mabaadi' ay ka duulaan leh oo mabaadi'doodaasi haday guul daraystaan maxaa ay la guul daraysanayaan haday guulaystaan ay la guuleysanayaan ma waxoodu waa waxa marka afkaarta marka taale iyo dadka maartay hoggaanka ah ee madaxda ah ee loo sabcinayo waxay aaminsan yihiin shalay inagu waxaan shalay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar iyo kooxdiisii waxay aaminsanayeen hanaanka federalismka ee qowmiyadaha ku dhisan waa kii maxaan ku yiraahdaa meeshii dadka badan ay isugu imaan jireen oo markuu joogay waxaan yeelaynin ka dambeyn doonin kuwii ugu sabcinayay Mustafana maxay waa kuwii markuu lahaa maxaan ku yiraahdaa waxaan ku qanacsanahay Etoobiyaanimada iyo kan maxaan ku yiraahdaa halka meel taagan ah
Tigray iyo federalism Tigray ha laga takhaluso waa federalismka ha laga takhaluso oo dadban bay ahayd mugta marka hanaankii federalismka ahaa waa la aasay totally ba meesha marka la inoo jiheeyo maxaan ku idhahdaa cusub ee dhanka le axmaar iyadu waxba ma qaranayso laakiin Abiy Ahmed maadaama hadda hoggaanka uu yahay wuxuu isku dayay inuu wax yar maaragtay mooso madamar buugiisa ah ayaana maaragtay wax walba ay ugu cad yihiin isaga waaye Abiy waanu iman doonaa daawadayaal intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkan kooban aan kaga warramaynay banaanbaxyadaasi xalay ilaa maanta hareeyay magaalooyinka waaweyn ee Ethiopia gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa iyo magaalooyinka gobolka Axmaarada ee Gondar iyo Bahardar intaan mar kale kulmi doono